barnaamijkeenan xogaha dahsoon waxaynu ku soo qaadanaynaa qiyaasta waqtiga ay gantaalaha Kuuriya u sii socon karaan dalka Mareykanka iyadoo khubarada dhanka ciidamadu ay su'aal iska weydiiyeen gaaritaanka gantaalaha Kuuriyada waqooyi ee ciidda dalka Mareykanka xilli ay qayb ka mid ah khubaradaasi shaki ka muujiyeen gantaalaha ridada fog ee ay Kuuriya tijaabinaysay muddooyinkii u dambeeyay taasoo ay ku tilmaameen inay yihiin hadidaad dhanka nukliyeerka ah oo aan iyada oo kale hore loo soo arag haddaba marka laga qiyaas qaato gantaalihii u dambeeyay ee ay Kuuriyada waqooyi tijaabisay waxa u suuragal ah inay gaadhaan oo si fudud u dhaqayn karaan xeebaha galbeed ee dalka Mareykanka sida uu dhawaan sheegay Mr David Wright oo ka tirsan khubarada ka hadasha amniga caalamiga David Wright waxa uu sheegay inay suuragal tahay in gantaalaha Kuuriyada waqooyi ay gaari karayaan caasimadda dalka Mareykanka iyo magaalooyinka kale ee kala ah New York, Los Angeles, Honolulu, Chicago iyo Goa waxaana jirtay in gantaalkii qaaradaha isaga gooshi jiray ee ay dhawaan tijaabiyeen Kuuriya uu muddo 45 daqiiqo uu xagga sare u gaaray masaafo 3700 kilomitir oo jooga sare ah ka hor intii aanu ka habsan badweynta dhexdeeda shabakada ka faalowta arrimaha caalamiga ee Business Insider ayaa waxa ay soo bandhigtay qiyaasta xilliyada ay gantaalaha kala duwan ee Kuuriya u sii socon karaan ciidda dalka Mareykanka gantaalaha oo 18 daqiiqo oo kaliya ku gaari kara jasiiradda Goa magaalada Los Angelesna 18 daqiiqo magaalada Chicago wax ka yar 40 daqiiqo oo qura suuragalna ay u tahay inay magaalada New York ku duqeyn karaan muddo 40 daqiiqo oo kaliya caasimadda Washingtonna wax ka yar 42 daqiiqadood khubarada kala duwan ee dagaalada istiraatiijiga waxa kale oo ay ku adkeysanayaan in barnaamijka Kuuriyada waqooyi ee gantaalaha balaastikada ahi uu dunida oo dhan u horseedi karo colaad dhanka nukliyeerka iyadoo ay khubarada dhanka atomikadu aaminsan yihiin in gantaalaha balaastikada ee Kuuriya ay gaari karaan magaalada Washington oo xuduudda Kuuriya u jirta masaafo ku dhow 7,000 oo mayl iyadoo gantaalaha balaastikada ay u dhigmaan kubadda cagta oo kale oo markasta oo xoog loo tuuro ama loo laado ay masaafo si dheer si gaari karayaan